gabadhii taajirka ahayd ayaa markii ugu horraysay timid guriga ninkeeda reer miyiga ah, waxayna si lama filaan ah u aragtay Mari oo ah hooyada ninkeeda, iyadoo kalluun ku qalajinaysa gaari nooca Rolls Royce ah. Muuqaalkan ayaa si toos ah uga yaabiyey. Markii ay gudaha u gashay si ay wax u cunto, waxay ogaatay in ulaha cuntada lagu cuno ee guriga yaalay dhammaantood ka samaysnaayeen lacag saafi ah. Mari ayaa sharaxday in tani ay ka caawiso inaan dhadhanka hilibka waxyeello gaarin. Kadib, iyadoo Mari ku qancisay, Lucy waxay dhadhamisay xabad abaloon ah. Waxay si lama filaan ah u ogaatay in dhadhankiisu xitaa ka fiicnaa cunnada ay sameeyaan maqaayadaha Michelinka. Laakiin Mari waxay sheegtay in kuwani ay ahaayeen cuntooyin guri lagu kariyey oo caadi ah. Isla markii ay hadalladaas maqashay, Lucy waxay markiiba dareentay in qoyska ninkeeda uusan ahayn mid fudud. Xilligaas ayuu ninkeeda Jack oo kalluun soo iibinayay guriga ku soo laabtay. Lucy markay jeesatay si ay u eegto, aad ayay ula yaabtay muuqaalkiisa. Waxay noqotay in labadoodu ay isyaqaanaan. Maalin ka hor, markii Jack uu baxay inuu kalluun iibiyo, wuxuu arkay nin oday ah oo si kedis ah waddada ugu dhacay. Wuxuu si naxariis leh ugu dhaqaaqay inuu caawiyo, balse nasiib darro waxaa lagu been abuurtay.